بسم الله الرحمن الرحيم maanta bishu waa afartii bishii shanaad 2009 waxaan kula kulmay barnaamij halkan ay dad badan oo isugu yimi ay ku doonayaan in dawladda Ingiriisku ay siiso shuruuc ama waxa ku shaqeystaan qolooyinka soo qaban qaabiyeen la yiraahdo strangers into citizens waxa halkan jooga in Soomaaliya walaal magacay waxa la yiraahdaa Maxamed Xuseen maxaadna halka u timid halkan waxaan u imid barnaamijkan ka soo qaybgalay dunida dacaladeeda marka waxaan halkan u miisaan sharci uga qaadano oo dadweynaha maartay badan halkan inay macnaha sharci macnaha ku shaqeystaan in badan ay sugayeen intaas sano wax la yiraahdo sharci waa u jeedna dad far badan oo Soomaaliya maanta ma imaanin waan ognahay dad badan oo Soomaali inaan sharci lahayn waxaad moodaa inuu dumarku rag badan yahay arintaas ma jirtaa arintaas oo u jeedaa in dumarka rag badan maanta si daro marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee maanta halkaas ku yimid haweenka waa u mahadcelinayaa in macna qayb leeyahay waxay ka qaateen barnaamijkan lagu doonayo si sharci u qaadan lahaayeen maxaad dawladda Ingiriiska ka codsanaysaa Gordon Brown maxaad ka oran lahayd Gordon Brown inuu adiga shakhsiyan ama dadka Soomaaliyeed uu qabto waxaan ka codsanayaa Gordon Brown dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee wadankooda aad ugu burbursan yahay halkan uu jooga in muddo sharci la'aan doorsano inuu macnaha siiyo sharci ay ku noolaadaan kuna shaqeystaan mataqaana noloshooda ku soo saartaan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa